wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Somaliland iyo hay'adaha wada shaqaynta ay leeyihiin WHO iyo UNICEF waxay ku wargelinayaan waalidiinta inuu bilaabmayo ololaha tallaalka ciribtirka cudurka dabaysha ee carruurta ka yar 5 sano. Ololahan waxaa laga fulinayaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Somaliland, kaasi oo socon doona 9 ilaa 13 bisha 7 2025. waxaana looga faa'iideyn doonaa carruurta 5 sano ka yar. sidoo kale wareeggan waxaa la socda kiniinka gooryaanka oo la siin doono carruurta ay da'doodu u dhaxayso 1 sano ilaa 5 sano. guryihiinna ayay idinku iman doonaan kooxaha tallaalku xilliga subaxdii 7 aroornimo ilaa 12 duhurnimo, gelinka dambena 3 galabnimo ilaa 6 maqribnimo. cudurka dabayshu waa halis, waxaana uu ku keenaa carruurta xaalad caafimaad darro oo aan lahayn ka dabatag ka hortag mooyaane. cidda uu asiibana waxa uu dhaxalsiiyaa naafannimo joogto ah ama dhimasho. waxa kaliya lagaga hortagi karaa waa 2 dhibcood ee afka laga qaato ee tallaalka dabaysha. mar kastoo aad siiso dhibcaha tallaalka cudurka dabaysha, ilmahaga waxay u kordhinaysaa difaaca iyo awoodda. waalid, hubi in carruurta 5 jirka ah ama ka yar ee guryaha joogta ay helaan dhibcihii tallaalka cudurka dabaysha, xitaa haddii ay heleen wareeggii kan ka horreeyey ama tallaalka laga bixiyo xarumaha dhallaanka iyo hooyada. sidaas darteed, waalid uga faa'iidee carruurtaada fursaddan muhiimka ah oo ka tallaal cudurka dabaysha oo haatan safmar ku ah qaaradda Afrika. carruurta xilliga tallaalka joogta dugsiyada waxaa lagu tallaali doonaa dugsiyadooda, madarasadaha iyo malcaamadaha. sidaasi darteed, waalid u oggolaada carruurta in la tallaalo idinkoo la xidhiidhaya maamulka dugsiyadooda, madarasadaha iyo malcaamadaha. farriintani waxay idinka timi wasaaradda horumarinta caafimaadka oo kaashanaysa hay'adaha UNICEF iyo WHO.